xog dheeriya oo laga helay halka ay ku xidhan yihiin laba markab oo ciidamada Iran qabsadeen. Sawirrada yacgacmeedka lagu qaaday oo ay aragtay qaybta BBC Verify ayaa muujinaya in labadii markab ee toddobaadkii hore ay qabteen ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ay hadda ku xidhan yihiin meel ka baxsan jasiiradda Hormuz. sawirro maanta la soo qaaday ayaa muujinaya maraakiibta MSC Faransiiska iyo Eba Mendodas oo ku xidhan masaafo qiyaastii 8 kiilomitir ama 8 mayl u jirta jasiirad ku taal marinka Hormuz. Labada markab ayaa waxaa la sheegay inay rasaas kula kulmeen ciidanka ilaalada kacaanka ee Islaamiga ee Iran Arbacadii la soo dhaafay, waxaana la sheegay inuu gaaray khasaaro. muuqaalo muujinaya xubnaha ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran oo dusha uga baxaya labada markab ayaa toddobaadkii hore laga baahiyay warbaahinta qaranka Iran, inkastoo ay falanqayn ay sameysay BBC Verify ay muujinayso in qaybo kamid ah muuqaalkaas la duubay kadib markii maraakiibta la qabtay. Taliska ciidanka badda ee Iran ayaa toddobaadkii hore sheegay in markabka Faransiiska oo laga leeyahay dalka Greek iyo markabka Mendodas oo sita calanka Panama la qabtay kadib markii ay halis geliyeen ammaanka marinada badda iyagoo ku shaqeynaya fasax la'aan.